kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan waxaynu eegaynaa war ka duwan wararkii hore iyo sidoo kale dabaaldega ka socda gudaha Soomaaliya caalamka intiisa kale guusha Soomaaliya ay gaartay iyo dharbaaxshada kulada ku dhacda Kenya kiiska badda oo si toos ah loogu xukumay dawladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dabaaldega ka bilowday albaabka maxkamadda ICJ iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan Hague kuwaas oo muujinaya dareenkooda dabaaldegyo waaweyn oo ka socda gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale meel walba ay ku sugan tahay Soomaaliya ayaan ku dul istaagi doonaa warkan iyo guusha Soomaaliya ay gaartay dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu guuleysatay kiiska dacwadda badda maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa markaasi Soomaaliya u go'aamisay inay leedahay badda Kenya ay sheegatay murunka ay gelisay waxaana markaasi lagu yiri Kenya idinku malihiin ee baddaas kaliya waxaad leedihiin 12 mayl oo u dhiganta 3 kiiloomitir waxaan dhameyn guul ayay markaasi ummadda Soomaaliyeed ee sidoo kale la soo hoydeen waxaana markaasi bilowday dabaaldegyada waaweyn iyo sidoo kale in looga guuleystay Kenya go'aankeedii guracnaa iyo sidoo kale doonista ay ku doonaysay inay dumiso ummadda Soomaaliyeed garsooraha markaasi xugminaya maxkamadda ayaa eedayn xoog badan u jeediyay dawladda Kenya iyo sidoo kale inay ku xadgudubto qaranimada Soomaaliya farahana la gashay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan ee arrimaha gudaha Soomaaliya taasoo ka dhigan in Kenya ay doonaysay inay ku darsato go'aanka iyo sidoo kale inay markaasi qaadato qayb kamid ah biyaha Soomaaliya go'aanka maxkamadda kiiska badda oo markaasi la shaaciyay iyadoo lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay ku guuleysatay balse Kenya ay markaasi helayso wax aan badnayn oo ah ilaa 3 kiiloomitir sida markaasi garsooruhu uu ka dhawaajiyay waxay qaadatay qaabka xadeynta in lagu xadeeyo xuduud badeedka oo ah in markaasi la raaco leenka waxaana markaas tixgelisay in ay jiraan duruufo qabsaday aba qasbaya in xariiqa la farageliyo taas oo markaasi ka dhigan in wax aan badnayn markaasi Kenya ay helayso oo la sheegay inay yihiin 12 mayl oo kaliya waxay go'aamisay cabirka xadeynta laga bilaabo BB 19 sidoo kale waxay go'aamisay maxkamaddu inaysan jirin wax xadeyn hore ah oo Kenya markaasi iyo Soomaaliya u dhaxeeyay Kenyana ay markaasi dacwadeedii ay u gudbisay maxkamadda ku sheegtay inay jirto xadeyn aba xariiqdan u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya saddex garsoore ayaa diiday waxa ay yiday 12 garsoore kuwaasoo si weyn markaas u taageeray go'aanka Soomaaliya saddexda garsoore diidana waxa la sheegay inay ahayeen kuwa maalmihii la soo dhaafay Kenya ay laaluush iyo lacag xoog badan markaasi siinaysay maxkamadda ICJ ayaa diiday markaasi sheegashadii Kenya ay ku doonaysay ee dhul badeedka Soomaaliya waxayna dhulku markaasi murunka uu ka taagan yahay aba uu ka taagnaa badankiisa loo xukumiyay Soomaaliya taasoo ka dhigan mid filwa iyo sidoo kale walwal uu ku dhacay dawladda Kenya oo u aragtay in markaasi looga guuleystay leenka iyo sidoo kale guud ahaanba maxkamadda ayaa diiday sheegashadaas ay markaasi Kenya ku doonaysay inay ku boobto hantida Soomaaliya go'aanka markaasi Kenya ayaa noqday hal bacaad lagu lisay waxaana sidoo kale muuqda in Kenya ay iminka ku doodayso inay markaasi qaadi doonto talaabooyin kale maxkamadda ayaa soo rogaysa amar degdega oo Kenya lagu amrayo inay guud ahaanba isaga baxdo aaga Soomaaliya maxkamaddu waxay markaasi qaadatay qaabkii Soomaaliya soo jeedisay in lagu xadeeyo xuduud badeedka oo ah in markaasi la raaco leenka waxa markaas qiimeysay inay jiraan duruufo qasbaya in xariiqa la farageliyo Kenya waxay soo jeedisay dhowr markaasi caqabadooda waaweyn waxay sidoo kale ku dooday in loo kala qaybiyo badda Soomaaliya iyo Kenya taasoo markaasi maxkamaddu ay ka sheegtay iyadoo garsoorihii markaasi shaacinaya natiijadaba uu ka dhawaajiyay maxkamaddu waxay markaasi xugmisay in Soomaaliya ay leedahay xuduudda badda ee murunku markaasi gelisay Kenya ICJ waxay sidoo kale faafisay qariirad ay ku muujinayso sida ay noqonayso soohdinta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya garsooraha ayaa si toos u sheegay in dawladda Kenya ay mudan tahay in lagu maxkamadeeyo balse maxkamaddu ay markaasi dalbatay in Kenya aysan jiri doonin wax amar oo la siinayo marka laga reebo amarka ah inay ka baxdo muddo kooban biyaha Soomaaliya maxkamadda ayaa go'aamisay in markaasi xadeyntan ay noqon doonto midda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya garsooraha ayaa ka soo sheekeeyay dalalka markaasi Kenya ay ku duushay oo Soomaaliya ugu dambeysay oo Tansaaniya ay qayb ka tahay iyo dalal kale dhowr
wuxuu sidoo kale ka soo sheekeeyey markaasi dalalkii loo kala xugmiyey dacwado ay u soo gudbiyeen maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. shacabka ku nool ee dalkaasi Holland ee markaasi u tagay daawashada maxkamadda ayaa durbaba bilaabay banaanbaxyo ay ku taageerayaan go'aanka maxkamadda iyo sidoo kale dabaaldegyo waaweyn, waxayna muujinayaan dareenkooda iyagoo cabiraya siday ugu faraxsan yihiin go'aanka ICJ iyo sidoo kale siday ugu mahad celinayaan garsoorayaasha u hiliya ummadda Soomaaliyeed. waad mahadsantihiin garsoorayaal dhammaantiin iyo sidoo kale qof walba oo ka soo shaqeeya kiiska difaaca baddeena. hambalya ayaan leenahay ayay shacabku markaasi ku dhawaaqayaan ku sugan ICJ, kuwaas oo albaabka maxkamadda ka bilaabay dabaaldega iyo sida markaasi ay ugu heelayihiin ummadda Soomaaliyeed inay guuleystaan. dowladda Kenya ayaa markaasi wajigabax ceeb iyo fadeexad iyo waliba tuuganimo markaasi lagu helay, waxaana fadeexad xoog badan ay xilligan dul hoganaysaa dowladda Kenya oo loo arko mid ku soo duushay biyaha Soomaaliya. taas waxay ka dhigan tahay in Kenya aysan mar kale ku degdegi doonin dowladda federaalka Soomaaliya iyo go'aanka dowladda Soomaaliya. maxkamadda ayaa sheegtay in Kenya si weyn uga xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya. maxkamadda ayaa aad u faahfaahisay wadada dheer ee dooda badda labada dal ay soo martay, iyadoo markaasi u muuqatay in maxkamaddu ay xuduud cusub u samaysay Kenya iyo Soomaaliya una xugminayso. dhanka kale maxkamadda ayaa taageertay galdacwadeedka dowladda federaalka Soomaaliya, sidaas ayayna markaasi Kenya meel cidla ku soo istaagtay, taasoo ka dhigan mid looga guuleystay doodeedii waalida ahayd iyo damaciidii dhulboobka iyo sidoo kale dhaqaale raadiska ahaa ay ku doonaysay inay ku barakiciso ummadda Soomaaliyeed. maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa u muuqata mid markaasi si weyn markaasi ugu diyaar garowday in biyaha laga difaaco Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaana markaasi waxay ku guuleysatay go'aankeeda iyo sidoo kale go'aanadeedii hore oo ahaa inay ku adkaysato helitaanka biyaha Soomaaliya. Kenya ayaa bixisay lacagtii ugu badneed sida garsooruhu uu ka dhawaajiyay, waxayna sidoo kale kor iyo hoos ula hadashay garsoorayaasha maxkamadda, balse garsoorayaasha ayaa u sheegay inay yihiin maxkamaddii kala saaraysay dal walba oo dal kale ku xadgudba, sidaa darteedna aysan qaadan karin wax laaluusha. garsooraha ayaa sidoo kale ku dheeraaday qayaanada Kenya iyo tuuganimada iyo xulufaysiga ay samaysanaysay muddadii markaasi doodu ay taagneed iyo dalalka ay u adeegsatay dowladda federaalka Soomaaliya inay la gacmagacmeeyaan ay markaasi kala hadlaan arrimaha badda sidii wada hadal looga geli lahaa. garsooruhu sidoo kale wuxuu sheegay in markii go'aanka maxkamaddu intuusan soo bixin ka hor fariin ay ka heleen Kenya, taasoo markaasi ku doonaysay in dib loo dhigo go'aanka maxkamadda, balse maxkamaddu waa ay diiday go'aankaas sidoo ka dhawaajiyay garsooraha. garsooraha ayaa sidoo kale Kenya ku eedeeyay inay tahay cadow Soomaaliyeed, iminkana aysan markaasi u muuqan dal diris la ah dalkay ku duushay. wuxuuna sidoo kale shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya dulqaad, dhabar adeeg, tanaasul iyo sidoo kale deganaanba ay muujisay soona bandhigta cadeymo waaweyn oo la qaadan karo, taasoo ka dhigan midda looga guuleystay dowladda Kenya. garsoorayaasha dowladda federaalka Soomaaliya u xushay inay markaasi tagaan maxkamadda ayaa ahaa kuwa markaasi aqoon durugsan u leh arrimaha badaha iyo sidoo kale xadeynta, waxaana taas ay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi qaaday koobkii Kenya markaasi muddada ay kula dhaganeed. farqiga u dhaxeeya cabirka Kenya markii hore ay ku doodayeen iyo go'aanka maxkamadda ay ku xadeysay waa markaasi kaaf iyo kala dheeri. dowladda Kenya markii hore waxay markaasi iska xariiqatay dhul weyn oo markaasi Soomaaliya ay leedahay, balse maxkamaddu waxay muujisay inaan marnaba lagu xadgudbi karin qarannimada Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ay muujisay dulqaad, dhabar adeeg iyo sidoo kale inay si degan markaasi ula doodo dowladda Kenya. oo iyadu ka baaqsatay inay markaasi ay ka qayb gasho dhageysiga kiiska dacwadda, balse arrintaas waxay noqotay mid markaasi lagu helo tuuganimo. dhinaca Soomaaliya markii aynu eegnay ciidanka badda Soomaaliya ayaa heegankii ugu weynaa galay, waxaana sidoo kale socda howlgallo ay wadaan ciidanka badda Soomaaliya kuwaasoo ka howlgalaya markaasi badweynta Hindiya. taliyaha ciidanka badda ayaa saacadii la soo dhaafay soo kormeeray aaga markaasi Kenya muranka gelisay badweynta Hindiya, taasoo ugu dambeyn ay ku guuleysatay dowladda federaalka Soomaaliya. Kenya awalba meesha waxba ma aysan u oolin oo waxay ahayd sadbursi iyo sidoo kale dagaal ay la doonayso ummadda Soomaaliyeed iyo inay ka guuleysato ummadda iyo sidoo kale inay ku qasabto dowladda federaalka Soomaaliya in markaasi gorgortan ay ka gasho biyaha ay leedahay.
boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha markaasi gudaha magaalada Muqdisho waxaana laamiyada lagu arkayaa calanka Soomaaliya oo babanaya iyo Soomaalida oo markaasi ku dhawaaqaya erayo cajiib ah oo ay uga soo horjeedaan markaasi dawladda Kenya ee ku soo xadgudubta qarannimada Soomaaliya go'aankan wuxuu noqday mid markaasi dadka Soomaaliyeed ay muddo sugayeen waana go'aan markaasi muddo dheerba ee dadka Soomaaliyeed ay ku jiifteen kuna soo toosayeen inay mar uun helaan biyaha Kenya ay marun ka gelisay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan warkii halkan ayaa ku soo koobaya nabadgelyo